إنا لله وإنا إليه راجعون. dhammaan afkiisa dhiig ayaa ka buuxay, qaar badanna waa uu ka da'ay. markii qolka la geliyey maxaa dhacay? subxaana allah, korkiisii dhammaa ayaa cadcad u go'ayay ilaa lugihiisa ciribta hoose. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabta qiimaha badan, halkaad naga daawanaysaan waa janalka Curad Caashaq. qofka idinla hadlayana waa saaxiibkiin cabdullaahi maxamed cabdi CMC. mar kale iyo muuqaal cusub. muuqaalka maanta wuu ka duwan yahay muuqaaladeedii hore, waana muuqaal aad u naxdin badan, ku cibro qaadasho mudan. waa qiso argagax iyo naxdin leh. isku soo noqod wanaagsan asxaabta qiimaha badan. fadlan intaana muuqaalka guda gelin, haddii aad nagu cusub tahay subscribe dheh janalka, gambalaalka furo si muuqaaladeena aad u noqotid qofka ugu horeeya ay soo gaaraan. sidoo kale like nagu dhiirigeli, siina share garee muuqaalka si uu asxaab badan u gaaro. wixii tale iyo tusaalahan nagula wadaag qaybta commentiga. waad ku mahadsan tahay daawashada iyo la socodka. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. qisadan waa qisadii iigu saamaynta badnayd qisooyinkii aan la kulmay. dhegayso oo duko una ducee walaalkeenna muslimka ah. sheekhii ka hadlayay qisadan waxa uu leeyahay, waxaan maqlay cod gaari ambalaas ah oo si xawli ah ku socdo. waxaan damcay inaan bal ka war doono waxa ay wado ambalaasta. waan soo dhaqaaqay, waxaana imid goobtii isbitaalka ahayd ee la keenay bukaanka ay ambalaasta waday. isla markii waxay ka soo dejiyeen wiil dhallinyaro ah oo aad u qaylinaya. qaybta emergensiga ayay u gudbiyeen. dhammaan afkiisa dhiig ayaa ka buuxay, qaar badanna waa uu ka da'ay. markii qolka la geliyey maxaa dhacay? subxaana allah, korkiisii dhammaa ayaa cadcad u go'ayay ilaa lugihiisa ciribta hoose. isaguna wuxuu ku barooranayay oo uu ka hor dhaaranayay kalkaalayaasha iyo dhakhaatiirta hortooda, wuxuuna odhanayay, wallaahi ma raba inaan geeriyoodo. biliis, waxaan ka baqayaa inaan naarta galo. weligay ma dukan, waan cabsanayaa. ma doonaya inaan dhinto. salaadda waan bilaabayaa. jamaacada masjidka ayaana la dukanayaa. keliya yaa nafta layga qaadin. dadkii sidaa u kor taagnaa ayaa baqay. wiilkan maxaa ku dhacay? yaa haysta? musiibadan halkeed ka timid? iyo su'aalo kale ayay dadkii isweydiinayeen. wallaahi goobta meel cabsi ah ayay ahayd. markaa kadib wiilkii wuu dhiig baxay ilaa dhiigga iskiisa u joogsado. wax lagu dhuftay ma jirin oo jug ah. waa dhiig mucjiso ah. maqaarkiisa ayaa midab jaallo ah isku beddelay. dadkii meesha joogay oo aan anigu ka mid ahaa waxaan ku dhahaynay, war ashahaado, ayuu yidhi shiiqa qisadan goobjoogta u ahaa. wuu isku dayay inuu ashahaato, laakiinse carabkiisa ayaa awoodi kari waayey. hiinraag xooggan ayuu galay. neefta ayaa horay iyo gadaal uga wareegtay. si kasta oo oksijiin loogu xiray wuu iska tuuraa. markii dambe shanqartiisii way yaraatay. dhaqdhaqaaqii wuu joojiyey ilaa jirkiisii noqdo mid aan nuuxsi lahayn. dhakhaatiirtii ayaa baaray, waxayna sheegeen khalaas, wiilkan wuu dhintay. innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. waxayna kaloo yidhaahdeen, ha loo soo duceeyo. taariku salaadka dhibkiisa ma yara. marada ayaa laga qaaday, misena jirkiisii maanta oo dhan jarjarid ayaa ku socotay. meel fiyow oo la qabtaa ma lahan. laa xawla walaa quwata ilaa billaah. nolosha waa markii iigu horreysay ee aan la kulmay qof sidaan u dhinto, ayuu yidhi shiikha. xikmadda qisadan laga qaadanaya waxay tahay, geeridu si lama filaan ah ayay kuugu imaanaysaa. ee dad yahow, salaadiina ilaashada oo ha odhanina, beri ayaan bilaabi doonaa. qof og ma laha beri inuu noolaan doono iyo in kale. waxa uu leeyahay shiiqii qisadan goobjoogga u ahaa, habeenkii xalay ahaa wallaahi maanan hurdin. sidii cunug yar ayaan u ooyay xalay oo dhan, aniga oo filaynin. waxaa igu soo dhacdhacay hadalkii ahaa,
hor inta uusan dhiman wiilka, wallaahi waan dukanaa, ma rabo inaan dhinto. Allow khaatumada noo hagaaji, aniga iyo dhammaan muslimiinta meel kasta oo ay joogaan. Walaal, haddii uu muuqaalkan ku soo gaaro, fadlan la wadaag asxaabta. Waxaa laga yaabaa in badan oo salaadooda dayacay inay kuwaana qaataan, maxaa yeelay Ilaahay qur'aankiisa wuxuu ku leeyahay fadakir fa ina adikraa tanfacu almu'miniin. marka walaalayaal mar waliba khayrka aan isku dardaaranno, sidoo kale salaada aan oogno. taariikhda salaadka cawaaqibtiisa waa midan aan hadda ka soo sheekeynay iyo wax ka daran. waa saaxiibkiin, waa walaalkiin Cabdullaahi Maxamed Cabdi CMC iyo janalka Curad Caashaq oo idin leh dembigiina iyo dembigeena iyo weliba dembiga waalidiinteennaba allaha dhaafo, jannada allaha nagu irsaaqo, allaha naga dhigo kuwii salaadooda iyo camalkooda oo dhammaan la anfaco. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.